muddo 2 sano uu taagnaa khilaaf siyaasadeed u dhaxeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo labada gudoomiye xisbi khaasatan xisbida kulmiye wadaniga cud ayaa maanta heshiis taariikhi lagu saxay madaxtooyada Somaliland madaxweyne Biixi gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro Mikhail jooga iyo gudoomiye Fasax Waraab ayaa saxay heshiiskaasi waxaan la joogaa gudoomiye xisbiga mucaaradka wadani gudoomiye muddo badan khilaaf adag u dhaxeeyay idinka madaxweyne maanta heshiis ba saxeedeen heshiiskaasi nuxuraan muxuu noqonayaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta cid kastoo heshiiska ka soo shaqeysay waanu mahadnaqaynaa ugu muhiimsanaa danjiraha dalalka Yurub ambassador Nicholas iyo ciddii kale ergooyin guddiga dhexdhexaadinta iyo shakhsiyaadkii kale badnaa isku dayay hawsha khilaafka iyo doorasho la'aanta in la soo afjaro waxa laga heshiiyay maanta arrintii doorasho la'aanta waxaana lagu heshiiyey heshiiskaasi nuxurkiisu ahaa in la qabto doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii golaha deegaanka sanadkan aynu ku jirno 2020 arrintii ugu muhiimsanayd ee muranku inta badan ku dhisnaa waxay arrintii guddiga doorashooyinka qaranka arrinta waxa laga heshiiyey in waxa wax laga soo qaatay go'aankii odayaasha labada guddigii hore in la soo celiyo marka waxa lagu dhexdhexaadiyay axzaabta iyo madaxweynaha in guddigii hore ee doorashooyinka ee waqtigoodu dhamaaday la soo celiyo laguna daro 3 qof oo caalami ah 10 qof ay qabtaan doorashada guddiga hadda jiraana awoodii ay ku wareejiyaan in guddidaasi uu qabto doorashooyinka guddiga waxay noqon doonaan guddi qabta iyagu doorashooyinka awoodiina la siiyo maamulka doorashooyinka iyaga yeelanaya diiwaangelinta iyaga yeelanaya arrimaha miisaaniyadda iyo shaqaalaha iyo qoristooda iyaga yeelanaya goobaha iyo maamulkooda iyaga yeelanaya marka heshiiska ka arki doontaan faahfaahinta inta ka badan guddidii hore guddidan dad jirta ku dhawaaqista natiijada ayay yeelan doonaan wixii shaqo ay qabtaan guddigan farsamo waxay u gudbin doonaan guddiga joogta hadda sidaasa ay noqotay in ilkaan lagu badbaadiyo waatay midna gudoomiye dadku ay isweydiin karaan laba commission soo wada shaqeyn karaan miyaan khilaaf hor la ka iman karin ilaa waa laba hadii loo baahdo mid ka mid la bedelo dadku waxay ka qabaan walaac weyn arkaasi maxaad ku leeyahay de markii hore soo jeedintii odayaasha waa ka horeyseen laakiin de markuu muran dhasho xal baa la raadiyaa marka guddigani waxay noqonayaan guddiga maamulista doorashooyinka ayay noqonayaan magacoodu commission del baarlamaanka la geynayo la ansixinayo maaha waa guddi hawshaas u xil saaran waajibaadkoodu hawshaas u yahay doorashada inay qabtaan tahay natiijada doorashada soo saaran tahay waad mid gudoomiye ilaa shalay adiga madaxweyne Biixi iyo Faysal Waraab inta mashquul baad haydeen oo hawl adag baad qabateen markaad soo qiimaysay jawgii shalay ilaa maanta maxaad isleedahay Somaliland doorasho ku lugta ma dhici karta sanadkan doorasho noo qabsanto haddii dee ay jirto niyadii in doorasho lagu qabto way qabsoomaysaa wax kasta oo imika dee obstacle weyn oo hadda hor taagana anigu ma arko waxaana lagu qiyaasayaa guddiga hore inay awood u leedahay inay 7 bilood ilaa 9 bilood ku qabato doorashada guddiga ugu dambeyn dadku waxay isweydiin leeyihiin Somaliland COVID ka hor riwaayadii la daawanjay siyaasadda ayaa dib u soo noqotay oo beesha caalamka ayaa soo fargelisay marka in nidaamkii dimuqraadiyadeed ay beesha caalamka soo fargeliso sida kula muuqata de runtii waxa fiicnaan lahayd inaynu inagu arrimeena ka heshiino laakiin inay la heshiisiyo ma yahayn laakiin nasiibku waxa weeyaan inaynu heshiinay hadda oo aynu ku heshiinay inaynu doorashadii qabanno
beesha caalamkuna aad bay ugu mahadsan tahay dee roolka ay ka qaateen iyo heshiiska ay iyagu soo daraafgareeyeen ama dee soo curiyeen aad bay ugu mahadsan yihiin hawsha ururada maxay ku dhawaaqay halay ku dumisay dee taasi daaqaday ka baxday doorashadii baa la qabanayaa deegaanka doorashadii baarlamaankana waa la qabanayaa marka taasi waxaan umaleeyaa su-aal meesha ku jirtaba ma hadda fariinta ugu dambeysay shacabka Soomaaliland iyo taageerashada gaarsiin noqonaysa taageerayaashii iyo dadka shacbiga Soomaaliland ba waxaa leeyahay maanta guul bay u tahay Soomaaliland iyo xisbiga wadani iyo xisbiga ucid iyo ka kulmiye iyo shacbiga Soomaaliland ba in doorashadii aynu qaban kari weynay aynu ku dhiirano inaynu qabanno marka aynu doorashadii u diyaar garowno waxaan waliba fariin gaar ah u dirayaa dulmanayaashii doorashada oo hadda dadkii sugayay dhowr iyo 10 sano inay soo diyaar garoobaan hawshaasina waxa lagu heshiisku inuu dhaqangal yahay maanta marka maanta laga bilaabo hawshu way bilaabmaysaa insha Allah daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhnow adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida